Assalaamu calaykum dhammaan mucaashaqiinta markaasi xiisaysa eFootball ama Konami meel walba adduun weynaha ka joogtaan kusoo dhowaada muuqaal cusub. Muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa waxyaabaha eFootballka ka cusub iyo waxyaabaha maalinka Khamiista sida rasmiga loo keeni doono ayaan kula wadaagi doonaa. Intaan muuqaalkeena gudaha u sii gelin muusow waxaan ka codsanaa inaad muuqaalkan like saarto, channelkana aad subscribe dhahdo, gambaleelkana aad furato si muuqaal walba aan soo dhigo uu kuu soo gaaro. Haddii aad hore subscribe iigu saartayna muuqaalkan like saar. Like-ta waxay ka qayb qaadanaysaa in muuqaalkan meel fog uu gaaro. Aad iyo aad ay u mahadsantihiin dhammaantiin meel walba adduun weynaha ka joogtaan. Muuqaalkeeni haddii aan gudaha u sii galno, muuqaalkan waxaan u kala qaadi doonaa manageriska la keeni doono, koonisyada la keeni doono iyo markaasi baagiska la keeni doono, ciyaaryahanada la keeni doono ayaan u kala qaadaynaa. Haddii aan markaasi ku hormarno manageriska maalinka Khamiista sida rasmiga loo keeni doono, waxaa u horeeyo tababarahan oo la yiraahdo Wenger oo aad ku furan doonto 500 oo koonis. Sidoo kale waxaa ku xigo tababarahan oo la yiraahdo Cannavaro, isagana waxaa ku furan doontaa 500 oo koonis. Sidoo kale Johan Cruyff tababarahan asigana waxaa ku furan doontaa 500 oo koonis. Sidoo kale Zico asigana waxaa ku furan doontaa 500 oo koonis. Sidoo kale waxaa la keeni doonaa tababarahan kale asigana waxaa ku furan doontaa 500 oo koonis. Sidoo kale waxaa la keeni doonaa Jurgen Klopp oo baaga asigana waxaa ku furan doontaa 500 oo koonis ah. Jurgen Klopp wuxuu ciyaaraa kuwii counter asigana waxaa ku furan doontaa 500 oo koonis. Sidoo kale manageriskan kalena ayagana labadooda mid walba 500 oo koonis ayaad ku furan doontaa. Sidoo kale haddii aan markaasi kula wadaago ciyaaryahanada markaasi la keeni doono, waxaa u horeeyo Bagan ama Masterful Starskan ayaa u horeeyo, Ruben Dias Coman, saddexdan ayagana waa la keeni doonaa maalinka Khamiista. Sidoo kale waxaa la keeni doonaa new captains ayagana waa la keeni doonaa. Sidoo kale waxaa la keeni doonaa Ibigiskan laakiin wejigooda si toos ah looma arkayo. Shirkadda waxay shaacisay saddexdaas Ibig oo 150 qof dhexdooda la soo dhexgelinay in ay keeni doonto. Sidoo kale waxay keeni doontaa Showtime-kaas oo wejigooda la arkaynin laakiin saddexdaas rag ayagana 150 qof dhexdooda la soo dhexgelinaya ayaa la keeni doonaa. Sidoo kale waxaa la keeni doonaa Magical Baskan oo saddexdan rag ayagana maalinka Khamiista waa la keeni doonaa. Sidoo kale waxaa la keeni doonaa Players of the Week-dan saddexdan ayaa la shaaciyay ayagana wejigooda toos looma arkayo laakiin saddexdan ciyaaryahan oo halkaan ugu jeedo ayaa si toos ah maalinka Khamiista loo keeni doonaa. Sidoo kale waxaa la keeni doonaa Magical Finisherkan oo hadda halkaan ugu jeedaan Alexander Isak oo u horeeyay ayaa ayagana maalinka Khamiista la keeni doonaa. Dhanka Bontiska haddii aan markaasi u gudubno, waxaa la keeni doonaa ninkan oo u ciyaaro Tottenham asigana waxaa ku furan doontaa 500 oo koonis ama 1000 koonisba inaad ku furato ayaa macquula, laakiinse maalinka Khamiista waa la keeni doonaa. Sidoo kale waxaa la keeni doonaa dhanka Bontiska Ruben Dias ayaa la keeni doonaa asigana aad ku furan doonto 500 oo koonis. Sidoo kale waxaa la keeni doonaa ninkan la yiraahdo Kimmich asigana waxaa ku furan doontaa 500 oo koonis. Dhanka Bontiska saddexdaas ciyaaryahan aan kuu sheegay mid ka mid ah in la keeno waa macquul, saddexdooda in la keenana waa macquul, in laba mid ama hal mid la keenana waa macquul. Sidoo kale tababarayaasha aan kula wadaagayna ayaga dhammaantood lama wada keeni doono, qaar ka mid ah in la keeno waa macquul ama hal qof ka mid ah in la keenana waa macquul. Sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa baagiska markaasi la keeni doono. Baagiska haddii aan markaasi fiirino, baag Barcelona ah waa la keenay, baag Manchester United ahna waa la keenay, baag Bayern Munich inay keento ayaa macquul ah. Sidoo kale baagan Arsenal waa la keenay, AC Milan waa la keenay, Inter Milan baageedana in la keenana waa macquul. Sidoo kale qaybtan match baaska ayaa wax badan laga bedeli doonaa. Haddii ay noqoto koonis, haddii ay noqoto trading, wax badan baa laga bedeli doonaa, laakiinse sida hadda halkaan ugu jeedaan match baaska waxaa la soo gelin doonaa ninkan la yiraahdo Lionel Messi ayaa la soo dhexgelin doonaa qaybta match baaska. Sidoo kale qaybtan codeynta waxaa la keeni doonaa
rule 4 keeda ayaa la keeni doonaa ama qaybtii afaraad ayaa markaasi la keeni doonaa. qaybtaas afaraad markaa codeyso kadibna waxaa lagu siin doonaa kooniskan oo hadeer halkan ugu jeedo 2025 koonis ayaa la bixin doonaa, waxaana la siin doonaa qof walbo markaasi codeeyey ayaa loo qaybin doonaa. sidoo kale waxaa la keeni doonaa ciyaaryaanadan European Club Championshipkan ayagana waa la keeni doonaa. saddexdan oo halkan ugu jeeda ayaa markaasi u horeeyo. Campaignkan ayaa la keeni doonaa oo aad ka faa'iidi doontid 280 koonis meel ah ilaa 120 koonis meel ah ayaad ka faa'iidi doontaa. Trading iyo GB wax walbo markaasi ku jirana waa ujeeda intaas oo hadda shaashada uu soo saaray ayaa markaasi ka faa'iidi doontaa. sidoo kale waxaa la filayaa in la keeno campaignki 850 milyan oo shirkadda ay u dabaaldegaysay. shirkadda waxay sheegtay in ay keeni doonto 11 bisha aan hadda ku jirno January ilaa 1 Febraayo ama bisha labaad dhexdooda in markaasi campaignkan la keeni doono. campaignkan waa la keeni doonaa, waa si rasmi ah ayaa loo keeni doonaa, laakiinse bishaan hadda ku jirno ilaa bisha labaad dhexdooda ayaa markaasi la keeni doonaa sida markaasi shirkadda ay noo shaacisay. campaignka 850 milyanka markii la keeno boqolkan koonis ayaa 10 ilaa 20 iyo 30 lagu siin doonaa. aad ka faa'iidi doontaa gameka marka aad sidaas u soo gashaba. sidoo kale markii gameka season 3 loo gudbo ama maalinka Khamiista koonisyadan iyo GB iyo tradinadan oo halkan ugu jeedo ayaa si toos ah markaasi lagu siin doonaa marka gameka sii galayso. sidoo kale season 3 marka loo gudbo waxaa la keeni doonaa ciyaaryaanadan oo u horeeya Lionel Messi ayaa la keeni doonaa asigoo markaasi 102 gaarayo. sidoo kale waxaa la keeni doonaa Manuel Neuer asigana 102 soo gaaraya la keeni doonaa. sidoo kale Neymar ayaa la keeni doonaa asigoo markaasi big time oo 102 gaarayo. sidoo kale Mbappe ayaa asigana la keeni doonaa asoo markaasi gaarayo 103. sidoo kale waxaa la keeni doonaa Ronaldinho asigana 103 soo gaaraya ayaa la keeni doonaa. intaas markaa kasoo gudubno sidoo kale waxaa la keeni doonaa qaybtan uu ku jiro David Beckham ayaa waxaa la filayaa in wax laga bedelo ama in ciyaaryaano kale markaasi lagu soo kordhiyo. sidoo kale gameka waxaa loo diri doonaa update versionkiisu yahay 4.3.0 ayaa loo diri doonaa. updateka marka loo diro gameka hawada ayuu ku maqnaan doonaa, qof walbana marka uu soo degsanayo App Store ama Play Store ayuu markaasi kula soo degi doonaa. gameka markaas saas u gashana waxaa lagu siin doonaa 1 chance deal ayaa lagu siin doonaa oo free ah oo aad tuuranaysid. intaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago. please waxaan kaa codsanaa haddii aad muuqaalka dhammaadkiisa aad nala soo gaartay inaad muuqaalkan like saarto, channelkana aad subscribe dhahdo, gambaleelkana aad tuurato si muuqaal walba oo aan soo dhigo uu ku soo gaaro.